bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan warbixinadeennii kala duwana oon idinkugu soo gudbin jirnay beejka baarka 252 waxaanaan ku bilaabeynaa laacibka reer faransa ee Antonio Griezmann inkastoo uu sanadkiisii ugu horreeyay ku qaato Barcelona haddana waxa uu shaki weyn ku jiraa mustaqbalka Antonio Griezmann ee kooxda Barcelona iyadoo wararku ay sheegayaan in Barcelona haatan baa suuqan dhigtay xidigan si uu iibiso xagaagan. Antonio Griezmann ayaa noqday xidigii ugu qaalisanaa taariikhda Barcelona xagaagii hore, laakiin waxa uu ku fashilmay inuu qaab ciyaareed fiican soo bandhigo xilli ciyaareedkan. Samuel Umtiti waa xidig kale oo reer Faransa ah, laakiin xidigan waxaa la hubaa inuu isaga tagi doono kooxda Barcelona inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Umtiti ayaa laf dhabar ka ahaa kooxda Barcelona, laakiin wax waliba waxay isbedeleen markii uu dhaawacyo saaxiib la noqday, taasoo keentay ama uu ka baxo qorshaha tababarayaasha kooxda Barcelona ayaa u dhaqaaqi doonta daafaca Villarreal ee Pau Torres haddii Man City ay diido dalabka ay kaga doonayaan daafaca Eric Garcia. Mundo Deportivo ayaana warkan qortay. Guud ahaan waa naga intaa wararka suuqa kala iibsiga ee kooxda Barcelona.